عليكم. kusoo dhawaada barnaamijkeena ducooyinka kormeel aqbalaa ducooyinka waa qofka ducada laga aqbalo waa maxay shuruudaha ducada lagu aqbalo hadaba insha Allah halkan ayaad kaga bogan doontaa cashirkeena caawa inta aan adduunkan ku noolahay nagama dhamaanayso murugo xanuun cabsi iyo dhibaato waana sababta adduunkan uusan marnaba kaamil u noqonaynin maanta murugo bari farxad maanta caafimaad bari xanuun maanta taajir bari faqiir hadaba waxaan rabnaa inaan idinla wadaago ducooyinka la aqbalo iyo waqtiyada ugu haboon ducooyinka la aqbalo iyo waqtiga ugu haboon إلهي سبحانه وتعالى وقير بدنه وديق بدنه ونحرس بدنه وحو الدواقع الدوميديسا أو إدل وحو نيري إبريا وإن إدين أقبلي بريدنا دعوينك يو إناد إلهي سبحانه وتعالى بريدو إناد دعيستو وآد الله بريدو وعبادة نبتها محايلي مركات لهيسو يا ربي aad gacmaha kor u taagayso waxaad qiraysaa daciifnimadaada baahida iyo raxmadda awoodda rabbi subhanahu wa ta'ala haduu ilaahay ku heeliyo uu ku gargaaro waxa xaqiiqo ah in aysan jiri karin cid ka guuleysan karto ama ka awood badin karto sida darteed badi ducooyinka marka murugo aad dareento iyo markalaba hadaad culays dareento xasuusnaaw in alle uun ka qaadi karo hana iloobin inaad mar walba asaga ku kalsoonaato yay anfacdaa ducada dhabta ahi waxay anfacdaa guud ahaan mu'miniinta waxayna noqonaysaa in laga aqbalo wixii ay rabbi weydiisteen oo khayr iyo wanaag ah in ay ka celiso shar iyo dib kugu soo socdo oo uusan ogeyn in ilaahay ducadiisa ku siiyo khayr uusan sugaynin iyo in ajirkaada loogu kaydiyo maalinta qiyaamaha ee baahidaada aad u daran ilaahay ma hoojinayo adoon baryay si daacad ah kuna baryay magaciisa sare ee qiimaha badan mid kamid ah waa kuwee ducooyinka la aqbalo ee ugu qiimaha badan ducooyinka waxa ugu qiimo badan midda uu adoonka rabbigiis barya marka uu aadka ugu baahan yahay isaguna markaas uu duuleynayo محو إلهي سبحانه وتعالى كويري نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كويري هدي أدوميه أنيغا إيغا ويديستان أنيغو وان أدوي هاي وانا أجيبا يا دعاء قفك إبريا إلهي أدون كيسا بريديسا كما دالو كما نباتو ما نكو دالو وحو ربي كفر حا غورتا وأدون كيسا علايس يدباتو لسو قدبوناتو misana xasuusto in alle uu yahay kan kaliya ee ka qaadi karo una soo laabto xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga maxay saxaabadu mar kale weydiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay saxaabadu mar kale nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiiyeen rabbi subhanahu wa ta'ala ma noo dhaw yahay si aan codka hoos ugu dhigno mise uu naga fog yahay oo codka kor baan u dhigaynaa su'aashaas kadib rabbi baa samada uu soo jawaabay kuna yiri rabbigiin u barya si hoos iyo isku duleyn ku jirto waa kee qofka ducooyinka laga aqbalo ama qofka rabbigii xasuustay u toobad keenay ulana yimid qalbi hufan qofka run sheegaya dibkiisana u sheegta gacmahana hoorsado qof xalaal qoota ah
xumaana iyo dulmi iyo xaraan ka dheeraado qof aan rabbi ka baryin xumaan dulmi dembi iyo qaraabo goyn ee alle ka barya khayr wanaag dembi dhaaf iyo cafis qof aanan ka quusan raxmada alle oo aan dhihin waan ducaystay ducadeydana la igama aqbalin qof ku aadiyey ducadiisa waqti iyo goob ku habboon marka intaas qofka ee iskugu tagto qeybahaas kala duwan kow waxaan dhahnay qofka run sheegaya dhibkiisana u sheegta gacmahana u horsada ilaahay subxaanahu wa tacaala laba qof xalaal quuta ah xumaan iyo dulmi xaraan ka dheeraada qof aan rabbi ka baryin xumaan dulmi dembi iyo qaraabo goyn ee alle ka barya khayr wanaag iyo dembi dhaaf iyo cabis qof aanan ka quusan raxmadda alle oo aan dhihin waan ducaystay oo ducadeyda micnaha lagama aqbalin qof ku aadiyey ducadiisa waqti iyo goob ku habboon dadka ducooyinka sida gaarka ah looga aqbalo waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay in ay jiraan qaybo dadka ka mid ah oo ducadooda si gaar ah looga aqbalo waxaa ka mid ah dadkaas waa kuwa dadkaas qofka la dulmiyey kow waalidka u duceynayo caruurtiisa qofka musaafirka ah iyo walaalka muslimka ah marka waxaan rajeynayaa haddii tilaabooyinka amaba sifooyinkaas qofka ku sifooway aad noqoto in ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadaada ka aqbalayo sidii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam noo sheegay saddexda ducooyinka qofka laga helo arrimahaas aan soo sheegnay waxaa insha allahu tacaala la rajeynaa in ducadiisa laga aqbalo sidii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu inoo sheegayo sidoo kale haddii qofka ducadiisa laga helo shuruudahaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay in markaas ducadiisa qofka la aqbali amaba adduunka uu ku heli amaba aakhir uu ku heli amaba dhib ku soo socda markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga joojin doono marka waxaan rajeynayaa insha allah inaad ka faa'iidaysateen warbixintaas ducadaas iyo qaabka ducooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka addoonka ugu aqbalo haddii aad nagu cusub tahay channelka Daarul Naciim waxaan leenahay kusoo dhawaaw channelka subscribe saar sidoo kale like-ta saar si dad badan uu gaaro muuqaalkan insha allahu tacaala waxaan idin rajeynayaa khayr iyo wanaag wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.